kulan wacan oo wanaagsan saaxiibadeena ku xiran barteena YouTube-ka Gacmo Gaab Tube soo dhawaada. Maanta waxaan idiin wadaa muxuu madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan ka yiri shirkii golaha guud ee qaramada midoobay. Fadlan haddaan nagu cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saartid channelka, sidoo kale muuqaalkeena aad meel dheer gaarsiisid. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa qaramada midoobay ku canaantay wax ka qabasho la'aanta gobolka dagaalka ka socda Gaza, wuxuuna ku eedeeyay Israa'iil inay dhulka Falastiiniyiinta ka dhigtay xabaalaha ugu weyn adduunka. Isagoo ka hadlayay golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ka dhacay Talaadadii, wuxuu yiri magaalada Gaza ma ahan carruurta oo kaliya inay ku dhimanayaan, laakiin sidoo kale nidaamka qaramada midoobay qiimaha ay reer galbeedku sheeganayaan inay difaacaan way sii dhimanaysaa, runtuna way sii dhamaanaysaa, rajadii bini'aadamigu lahaana way sii dhamaanaysaa. Waxaan si bareer ah halkan kugu weydiinayaa kuwa Gaza iyo daanta galbeed ee la haysto miyaynan ahayn bini'aadam? Carruurta Falastiin wax xaquuq ah ma lahan miyaa? Erdogan oo si cad u dhaleeceeyay weerarka Israa'iil ee Gaza ayaa sidoo kale ku canaantay xukuumadda ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu in ay gobolka Bariga Dhexe ku sii jiiday dagaal, wuxuuna ku booriyay beesha caalamka inay joojiyaan Netanyahu iyo shabakadiisa dilalka, wuxuuna isbarbardhig ku sameeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo Hitler, sida Hitler u joojiyay isbahaysiga bini'aadanimada 70 sano ka hor. Netanyahu iyo shabakadiisa dilalka waa inay joojiyaan isbahaysiga aadanaha, ayuu yiri madaxweynaha Turkiga oo ayaa ku baaqay xabad joojin degdeg ah oo ka dhacda Gaza, halkaas howlgallada militariga Israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 41,460 qofood. Israa'iil tirada dadka lagu dilay weeraradii ay Xamaas hogaaminaysay ee dhacay 7 Oktoobar waxay ahayd ugu yaraan 1,130 qofood, halka in ka badan 190 lagu qabtay. xabad joojin degdeg ah oo joogto ah waa in la sameeyaa isdhaafsiga la haystayaasha iyo maxaabiista, iyo in gargaar bini'aadanimo lagu gaarsiiyo Gaza si aan kala joogsi lahayn, ayuu yiri Erdogan. Hogaamiyaasha kale ee ka hadlay shirkan golaha guud ee qaramada midoobay waxaa ka mid ah boqorka Jordan Boqor Cabdallah ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada in dalkiisu uu noqdo dal kale Falastiiniyiinta, isaga oo ka digay barakicintooda qasabka ah ee Israa'iil ku wado. Wuxuu ku tilmaamay dambi dagaal. Waxa uu sheegay in uu ka jawaabay soo jeedinta ay soo jeediyeen xagjiriinta gobolkiiga qarka u saaran dagaal ka dhan ah boqorka, oo ayaa ku booriyay beesha caalamka inay ku biiraan dadaal gargaar oo ballaaran oo lagu gaarsiinayo cunto iyo biyo nadiif ah iyo daawooyin muhiim u ah marinka Gaza, halkaasi oo ku dhawaad 1 sano uga socday dagaalkaasi oo dhaliyay dhibaatooyin aan hore loo arag. Waxaan boorinayaa dhammaan qurumaha damiirka leh in ay la midoobaan Jordan toddobaadyada muhiimka ah ee soo socda howlgalka, ayuu yiri. Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa sheegay in dagaalka Israa'iil ay ka wado marinka Gaza uu yahay xasuuq mar uu ka hadlayay madaxda caalamka oo ka qaybgalay shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Weerarka bareerka ah ee maanta lagu hayo dadka reer Falastiin ee ku sugan marinka Gaza waa gardaradii ugu ba'need uguna foosho xumeed, ayuu yiri, isaga oo colaadda ku tilmaamay dambi xasuuq marka laga soo tago Gaza. Erdogan wuxuu sidoo kale taageeray Lubnaan, halkaasi oo Israa'iil ay qaaday weeraro baxsan oo ku beegsanayso Xisbullah maalmihii la soo dhaafay. Isagoo ka hadlayay mowjadihii u dambeeyay ee weerarada dhimashada badan leh ee Israa'iil ay ku qaaday Lubnaan, ayuu yiri hogaamiyaha Turkiga, maxaad sugaysaan inaad joojisid shabakada xasuuqa ah ee khatarta gelisay sidoo kale nafta muwaadiniinteeda oo ay weheliyaan dadka reer Falastiin ee gobolka oo dhan ku jeediya dagaal iyadoo loo eegayo mustaqbalkeeda siyaasadeed. Waxa uu dhaliilay golaha ammaanka ee qaramada midoobay
in ay ku guuldareysteen in uu amar ku joojiyo dagaalka Gaza iyo Lubnaan. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, maxaad sugaysaan si aad uga hortagtaan xasuuqa Gaza oo aad tiraahdid jooji naxariis daradan tan wax xusnimada leh, ayuu weydiiyey. Erdogan waxa uu si gaar ah u tilmaamay dalalka taageera Israa'iil si shuruud la'aan ah, isaga oo weydiiyey ilaa goormeed sii qaadi doontaan ceebta aad arkaysid ee xasuuqan. Waxaan jeclaan lahaa inaan si cad oo cod dheer ah halkan ugu sheego in dowladda Israa'iil ay iska indhatirayso xuquuqda aasaasiga ah ee bini'aadamka kuna tumanayso sharciga caalamiga ah fursad kasta iyo dhaqan nadiifinta qowmiyadaha xasuuq cad oo ka dhan ah, ayuu yidhi Erdogan. Waxa uu sheegay in markii la aasaasay Qaramada Midoobay ay dib u soo noolaatay rajadii laga qabay xasilloonida caalamka iyo nabadda iyo cadaaladda. Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, Qaramada Midoobay waxay ku guuldareysatay inay fuliso hawsheeda aasaaska ah, waxayna tartiib tartiib u noqotay qaab dhismeed aan shaqaynin, ayuu yidhi madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlayay shirkii Golaha Guud ee Qaramada Midoobay Talaadadii lasoo dhaafay.